boqor Buurmadow oo fashiliyay ayuu ku soo dhamaaday ayuu yiri ShirkaJabuuti uga furmay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Somaliland muddooyinkii dambe uga socday isla markaana halkaasi ku soo gabagaboobay boqor Ismaan Maxamuud Buurmadow oo kamid ah ismada dhaqanka ayaa ka hadlay ShirkaJabuuti dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland dhinaca kale madaxda dawladda Soomaaliya ayuu sheegay in lagu fashiliyeen inay soo bandhigeen wax ay shacabka Somaliland aysan ku qancin qodobada madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayuu sheegay in uu u badnaad taariikho hore balse aanan ka hadlin halka loo socdo meesha fashilka ayuu ka soo baxay labada dhinac ayaa midna guul kama gaarin buu wada hadladii ayuu yiri boqor Buurmadow oo kamid ah ismada dhaqanka ee Somaliland arrimaha masiirka marka ay taagan yihiin xafidada wiil laguna qiimeeyo anigu waxaan buuri qabaa inay dayaceen fursadaha markii dalka burburay waxaana ahayd buuri inay caasimada Soomaaliya ee Hargeysa ka dhigaan ee calanka dhulka ka qaadno sidii ciiga loo sheegay una ku qanco waxaana marka hore la weydiiyay buuri arrimaha mideynta iyo gooni isku taaga uu soo jeediyay in mar wadooyinka cusub ee marka hore la galo midnimada shuruudaha leh oo marka dambana afti loo kala qaado waxaana uu ku kala bixi karnaa buuri maanta waa wadooyinka dawladdu ku kala baxeen meesha ay waxa ka dhacay buuri meher waxaana kale oo lagu kala bixi karaa oo furitaan ka yimaada labada dhinac waana midda calanka buuri inaga kala leeyihiin ayuu yiri boqor Buurmadow oo kamid ah ismada dhaqanka Somaliland oo ka hadlayay dalka Dubai